Assalaamu calaykum. Waan ku salaamay daawade meel kastood kaga sugan tahay dunidana waxaan ku rajaynayaa caafimaad iyo badqab. Barnaamijkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa imaamkii weynaa ee Soomaaliyeed kaasoo lagu magacaabi jiray Imaam Axmed Gurey. Waa dhowr qaybood balse aan ka horeyno qaybta koowaad. Waxa uu ahaa Imaam Axmed Gurey raggii madaxda aad uga soo horjeeday in jihaadka laga joojiyo gaalada ku dhaqan wadankaasi Itoobiya. Waxay muslimiinta u geysanayeen awgeed iyo tacdiyada u geysanayeen awgeed sidoo kalena waxay ku hayeen cagta hoosteeda sidoo kale waxay ka qaadi jireen lacag lagu magacaabi jiray jizya taasoo ahayd lacag baada. Dagaalada aan kadib waxa dhacday in Imaam Axmed Gurey la wareego magaalada Herar taasoo ay ku xooganayeen xamashada ku dhaqan wadankaasi Itoobiya. Dabadeedna wuxuu bilaabay in weerar isdaba jooga oo jihaad uu ku qaado gaalada ku dhaqan wadankaasi Itoobiya taasoo keentay dagaalo ba'an oo muddo socday inay dhex maraan gaalada iyo Soomaalida ku dhaqan wadankaasi Itoobiya. taas oo lagu xasuusto inuu ahaa Axmed Gurey mujaahidkii kaas oo la dagaalamay gaalada ku dhaqan wadankaasi Itoobiya. Inta uu degan yahay dhulka Tigreega waa inta ka calaamadsan khariidada wadankaasi Itoobiya taasoo lagu darsaday Soomaali galbeed ama waqooyi galbeed. Taasi waxay keentay in muslimiinta muddada dheer ku jirtay cagta hoosteeda ay ka baxaan oo ay ku farxaan ciidamada uu hogaaminayay Imaam Axmed Gurey sidoo kalena waxay u soo galeen koox kuna soo biireen cududii uu hogaaminayay Imaam Axmed Gurey. Waqti yar kadib waxa dhacday in ciidamadii muslimiinta ahaa ay cagta mariyeen gaalada ku dhaqan wadankaasi Itoobiya sidoo kale waxay qabsadeen gobollo badan sida Amhara, Lasta, Shawa, boqorkii ka taliyay wadankaasi Itoobiyana uu ka baxsaday. Sidoo kale waxay qabsadeen gobolka Tigreega waxayna ku soo rogeen dadkii ku dhaqnaa lacag taasoo lagu magacaabi jiray jisyada. qadiimadii iyo wixii la qabsaday muslimiintu waxay furteen dhul fara badan sidoo kalena imaamku wuxuu u saaray guddi farsamaysa arrimahaasi qadiimada iyo waxa la qabsaday. Alla naxariistii jannaa ka waraabiye Imaam Axmed Gurey muslimiintii ku dhaqnayd magaalada Herar iyo guud ahaanba wuxuu u sheegay oo magaaladaasi ka dhawaaqay maanta laga bilaabo inuu qofna qof uga habaysanin waxa uu qabsanayo iyo sidoo kale qofna uu qof ka cabsanin iyo qof kastaba hawlihiisa uu iska wato iyo nolol maalmeedkiisa intaba. Waxa la joojiyay dulmigii waxa sugnaaday cadaaladii waxa uu naxariistay oo naxariis u muujiyay dadkii maatida ah sidoo kalena wuxuu naxariis u muujiyay dumarkii laga dhintay iyo agoontii. Imaam Axmed Gurey wuxuu ahaa nin adag sidoo kalena nin aan qofna uga habaysanin waxa uu sameynayo sidoo kale wuxuu ahaa nin ku toosan xaqa iyo xadiiska rasuulka sallallahu alayhi wasallam. Intaa wixii ka dambeeyay Imaam Axmed Gurey wuxuu duulaan ku qaaday xamashada kiristaanka ahayd ee ku dhaqan wadankaasi Itoobiya maxaa yeelay waxay weligoodba weerari jireen muslimiinta ku dhaqan wadanka Itoobiya waqtigii Sacaadudiin boqorkii la oran jiray Sacaadudiin iyo kuwii ka dambeeyay iyo sidoo kaleba waqtigii Garaad Abwaan waxayna kula kici jireen muslimiinta waxaan la arki karin sidoo kale lana maqli karin sida dil dhac dagaal iyo sidoo kale inay gubaanba. Hase yeeshee waxaa xusid mudan in waqtigii Imaam Axmed Gurey uu talada dalka xukumayay suldaan lagu magacaabi jiray Maxamed bin Asaar bin Abubakar bin Sacaadudiin muddo 30 sano ah suldaanku jihaad ayuu la galay gaalada ku dhaqan wadankaasi Itoobiya. Hase yeeshee waa laga adkaaday muslimiinta iyo boqorka intaba kadib markii ay iskhilaafeen suldaankii Imaam Axmed Gurey. Haddaba suldaanka waxa loo dayay magaciisa iyo sandaladiisa inuu iska haysto. Imaam Axmed Gureyna wuxuu noqday ku-xigeenka suldaanka. Axmed Gureyna uu yeelay arintaasi oo aqbalay. Hase yeeshee dagaal kale ayaa dhacay kaas oo dhex maray Imaam Axmed Gurey iyo suldaankiina dagaalkaas ayuu ku baxay. Imaamkuna wuxuu u magacaabay sandalada ninkii dhintay walaalkii kaasoo lagu magacaabi jiray Cumar Diin. Imaamku wuxuu haray uga mid ahaa ciidamadii Garaad Abwaan ee fardoolayda ahayd waxa uu garaadku xukunka kala wareegay Mansuur bin Maxamed. Markaas ayaa waxa duulaan soo qaaday baadari xamashi ah kaasoo lagu magacaabi jiray Jadal Jaan oo ahaa macangeg waxa uu hogaaminayay baadariyaal fara badan waxa ay duulaan ku soo qaadeen ku soo dhawaadeen muslimiinta dad badan ayay laayeen waxayna dhaceen dumar badan. Sidoo kale waxa la qafaashay nin madaxa hooyadii kaas oo lagu magacaabi jiray Amir Abubakar. Daawadayaal halkaas ayay noogu joogtay qaybteena koowaad inta kulmi doono talabaad waxaan kaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.